السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. sababahaas aawad xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya wuxuu gaaray meel gabagaba ah kadib 10 sano xiriir aamusnaan ka dhaxeeya labada dal. xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta wuxuu ahaa mid xasaasi ah oo adag muddo 4 sano ah. falanqeeyaasha siyaasadda ayaa leh bilowgii xiisadan labadan dal waxay ahayd markii uu qarxay xiisadda khaliijka bishii June 2017 taasoo ka dhalatay mowqifkii dhexdhexaadnimo ee Soomaaliya waxayna naxdin siyaasadeed ku noqotay wadamadii xilliga ku kala qaybsamay khilaafka. Imaaraadka iyo waliba qaar ka mid ah daneeyaasha Muqdisho ayaa doonay inay ka leexiyaan mowqifkeeda dhexdhexaadnimo iyadoo loo marayo in cadaadis siyaasadeed la saaro iyo waliba faashado af leh oo lagu muuqooniyo. bishii Febraayo 19 iska hor imaad hubaysan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo waliba musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka ayaa warqad ka soo baxday waxa ay ku sheegtay in Soomaaliya ay ka jirto dawlad ku meel gaar ah iyadoona ku eedeysay in ay rabshado kicisay ay xoog u adeegsatay dad rayd ah. Muqdisho ayaa ka jawaabtay iyadoona ku eedeysay Abu Dhabi in ay doonayso in Soomaaliya ay ka dhigto sidii Liibiya iyo Yemen oo kale uuna doonayo in uu qalalaas ka abuuro Imaaraadka. eedeynta Soomaaliya ayaa laga yaabaa in ay guul weyn u tahay xiriirka siyaasadeed ee xumaaday ee labada dal. Liibiya iyo Yemen waxay la ildaran yihiin dagaalo ka dhacaya gudahooda marka loo eego cabirka dhulka gobolka. Imaaraadka labadani dal wuxuu siiyaa taageero dhan waliba ah oo sharci ah. Soomaaliyana waxay ka soo kabanaysaa dhibaatooyinka ka soo gaaray dagaaladii sokeeye ee ka qarxay isla markaana burburiyay dawladdii dhexe ee 1991 xiriirka aamusan ee Soomaaliya dhinacyada kala duwan. xiriirka labadani dal wuxuu ahaa mid isku dheelitiran gaar ahaan markii ay Soomaaliya u gudubtay marxaladda rasmiga ah ee caalamku aqoonsan yahay sanadka markuu ahaa 2014 gaar ahaan tan iyo markii la doortay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud 2012-2017. madaxweynenimadiisana waxaa lagu calaamadeeyay in siyaasadda Soomaaliya ay tahay siyaasad jirta ayna tahay dawlad jirta. isku dheelitirka caqabadaha gudaha iyo midka dibadeed ayaa gaar u ahaa la tacaalidda arrimaha murugsan oo ay ka mid tahay khilaafka Kenya iyo waliba mandaqada badeed ee saliidda hoodanka ku ah iyo dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliya iyo Kenya wajahayso. doorka Imaaraadku wuxuu ku koobnaa oo kaliya howlaha bini'aadanimo intii lagu guda jiray kala guurka ilaa ay ka soo baxday kaalinteedii siyaasadeed iyo doorkii weynaa ee ka ciyaaraysay kadib markii loo magacaabay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Imaaraadka. kadibna doorka Imaaraadka wuxuu bilaabay in uu siyaado siyaasad ahaan iyo waliba dhaqaale ahaanba gobolka Geeska Afrika isagoona saameyn weyn ku yeeshay gobolka. Maxamed oo cilmi baare ka tirsan xarunta daraasaadka Soomaaliya ayaa u sheegay Anatolia tan iyo waqtiga Imaaraadku wuxuu ku taageeray Soomaaliya tababaridda iyo waliba bixinta mushaaraadka ciidamada balse dhinacyada kale ee cilaaqaadka ula lahaana ay ahayd oo kaliya dhulka balse wuxuu saameyn weyn iyo waliba muuqasho weyn ka soo muuqday iyadoo aan laga warqabin maamulka dhexe ee aan loo gudbin arrimaha Imaaraadka ayuu yiri Handon. balse siyaasadda dabacsan ee dawladihii hore waxay dhowri lahayd oo kaliya xiriirka kala dhaxeeya dawladaha ka baxsan faragelinta Imaaraadka ee faylasha gudaha ee Soomaaliya. deganaanshaha ka dhaxeeya labadani dal ee xilliga jiray wuxuu sababay la jaan qaadista iyo waliba mid ka mid noqoshada madaxweynayaashii Soomaaliya iyo waliba tan kale oo ku saabsan oo ah in loo marayo gelin xiriir dibadeed oo aan ku dhisnayn aas iyo waliba mabaadi inta ay ku salaysan tahayna ay tahay aragti hogaamineed oo dawlad nacayb iyo waliba dal burburin iyo wajahaysa taasina ay keento dhibaatooyin badan. dhibaatada iyo waliba saameynta Imaaraadka Soomaaliya waxay bilaabatay 2017. Soomaaliya waxay qaadatay mowqifkii dhexdhexaadnimo markii Sacuudiga iyo waliba sultanka Imaaraadka Bahrain iyo Masar ay bilaabeen inay cunqabateyn siyaasadeed iyo waliba dhaqaale saaraan Qatar iyadoona ku andacoonaya in ay taageerto argagixisada taasina oo ah tan labaad oo sababtay in khilaafkooda kala go'o iyadoona markii dambe la shaaciyay in aysan arrinta ku lug lahayn kadib heshiisyo gacanka ka dhacay bishii Janaayo ee la soo dhaafay. inkastoo xiisadda khaliijku ay ahayd bilowgii xiriirkii xumaaday ee Soomaaliya iyo Imaaraadka haddana falanqeeyaasha ayaa sheegaya in arrinta kale si weyn looga hadalhayo isla markaana ka qayb qaadatay ee tahay ballaarinta khilaafkooda siyaasadeed ayna tahay iswaafajinta arrinta u dhaxaysan ee tahay Abdullaahi Farmaajo iyo madaxweynenimadiisii 2017 taasi oo kor u qaaday halku dhigi ahaa Soomaali weyn iyadoona sare u qaaday in la ballaariyo saameynta Imaaraadka ee kaga aadan xeebta istiraatiijiyadda ee Geeska Afrika laga soo bilaabo Eritrea, Djibouti ilaa gobolada la isku yiraahdo gobolada madax bannaanada Somaliland iyadoona dalbatay gooni isu taag si toos ahna ku dhawaaqday in ay tahay dal gooni u taagan sida laga soo xigtay Anwar Ahmed oo ah cilmi baare iyo waliba falanqeey siyaasadeed mowqifka dhexdhexaadka ah ee Muqdisho ee xiisadaha khaliijka wuxuu aad ugu dhawaa siyaasadaheeda arrimaha dibadda ee caadiga ah taasoo inta
badan la jaan qaadi jirtay siyaasadaha caasimadda gacanka waxayna la mid ahayd sidii dhagaxyo lagu tuurayo biyo meel fadhiya oo kale. xiriirka imaaraadka ee doorka hogaamineed kaga ciyaarayay xiisadaas isku dayga imaaraadka uu ku doonayay in uu ku cadaadiyo Soomaaliya in ay laqdo seef af leh mowqifkeeda kaga aadan dhexdhexaadnimada, isagoona jeclaan lahaa in dowladda goboleedyada iyo dowladda federaalka uu ku riixayo in ay qaataan mowqif ka dhan ah dowladda dhexe. wuxuuna saliid ku shubay dabkii ka ognaa maamul goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe, iyadoona ku jirto xiisadaha siyaasadeed ee u dhexeeya labadaas dhinac, taasi oo horseeday in uu kordho luuqadaha hadallada siyaasadeed ee la isku marinaya warbaahinta labada dhinac, ayuu yiri Axmed. ballaarinta iyo weliba qiyaasta ee sameysay imaaraadka dekedaha geeska Afrika kadib markii Djibouti ay jibisay qandaraas ay la gashay shirkadda caalamiga ah ee Dubai, iyadoona loo marayo heshiisyo aan laga fiirsan dhinacyada ay qusayso, waxayna ka mid ahayd waxyaabaha sidoo kale saameeyay xiriirka labadaas dal. dekeda berbere ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku eedeysay dowladaha shisheeye in ay faragelin ku hayso arrimaheeda gudaha, iyadoona kala jabay xiriirka shaki la'aan ah una qaybsamay laba qaybood oo ay la leeyihiin madaxda maamul goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe, iyagoona inta badan diidan mowqifka siyaasadeed ee dibadda ee Muqdisho. arrimaha ku saabsan xiriirka xumaaday, Aweys Adwan oo ah falanqeey siyaasadeed ayaa Anatol u sheegay in asalka khilaafka sida ay qabto Muqdisho aragtideeda ay tahay mowqifkeeda dhexdhexaadnimo ee xiisaha khaliijka iyo weliba heshiiska dekedaha saddexda geesoodka ah ee Somaliland, Ethiopia iyo Dubai ay tahay mid dhexdhexaad ka ah arrimaha oo idil. shirkadda ayaa xiriirkeedii xumaaday ilaa heer ay dacwad u gudbiso Soomaaliya jaamacadda Carabta iyo weliba fagaarayaasha caalamiga ah, iyada oo u aragta heshiiskaas mid xadgudub ku ah madax bannaanideeda gudaha Soomaaliya. heshiiskaasna waxaa lagula kulmay diidmo gudaha ah oo ka dhex jirta dadka siyaasadaha Soomaaliya isku haya iyo weliba golaha sharci dejinta, halkaas oo ay baarlamaanku ku cadeeyeen in la baabi'iyo heshiiskaas oo sidoo kale wiiqay dadaaladii dib loogu bilaabi lahaa wada xaajoodka u dhexeeya Somaliland iyo Muqdisho oo ay hoostagayso dowladda Turkiga, taasi oo xiisada kor u sii kicisay ilaa heer ay isweydaarsadaan hadallo xanaf leh warbaahinta. saraakiisha labadaas dhinac Soomaaliya mar walba waxay u aragtaa mucaamalada tooska ah ee dibadda ee lala yeelanayo madaxda dhulalka goboleedyada in ay tahay hay'ad madax bannaan oo ka fog dowladda dhexe, in ayna tahay nooc ka mid ah faragelinta arrimaheeda dibadda iyo weliba mideeda gudaha. xiriirka nusjabay ee noocan xiriir hadda ka dhexeeya Muqdisho iyo Dubai, Maxamed Shiikh oo ah saxafi iyo weliba falanqeey siyaasi ayaa u sheegay Anadol tan iyo sanadkii 2016 xiriirka diblomaasiyadeed uu ku dhawaaday in uu jarmo kadib markii gabi ahaanba la joojiyay taageeradii imaaraadka ee Soomaaliya, taasi oo meesha ka baxday lacag dhan 9.6 milyan oo ay leedahay imaaraadka, iyadoon loo eegaynin danaha guud ee ka dhexeeya labadaas dal. xiriirka wuxuu ahaan doonaa mid qabow oo heerkiisu ugu hooseeyana ay marayso hadda marxalad aad u xun marka laga fiiriyo arrimaha la isku hayo. doorashada madaxtinimada ee siyaasadda ayaa suuragal ah in ay arrintan wax badan ka bedesho. falanqeeyaasha siyaasadda ayaa sheegaya haddii labadaani dal ay doortaan in ay galaan weji cusub oo wada hadal ah, in ay la macaamili doonaan arrimaha la isku hayo islamarkaana laga saari doono khilaafka halkaa ka jira. Maxamed Alxaajar oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta Al-Qatar ee la tashiga iyo weliba cilmi baarista ayaa u sheegay Anadol xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal uu soo maray xilli xiisad iyo weliba soo jiidasho leh 4 sano ee la soo dhaafay sabab la xiriira falalka gudaha iyo weliba midda dibadda oo ay waxyeelo soo gaartay 10 sano. iskaashiga siyaasadeed iyo weliba midka bini'aadanimo ayuu intaasi ku sheegay in ay meesha ka baxday. Alxaajar ayaa wuxuu intaasi ku daray in ay dhici karto in mar labaad qadka telefoonka ay ku wada xiriiraan Muqdisho iyo Abu Dhabi, taasina waxaa go'aamin karta oo kaliya doorashada soo socota natiijada ka soo baxda, maadaama imaaraadku sharad kula galay isbedelka ka dhici kara madaxtooyada, balse ay heli doonaan kuwa fahma danaheeda iyo weliba siyaasadeeda iyo weliba istaraatiijiyadeeda gobolka. Soomaaliya iyo weliba hoggaankeeda mustaqbal waxay raaci doonaan siyaasad ka dabacsan tii ka horeysay ee ahayd in ay xakamayso siyaasadda arrimaha dibadda, iyadoo fooririnaysa dhibaatooyinka ka jira dalalka dariska ah iyo weliba kuwa gobolka si loo xoojiyo dadaalada gudaha iyo weliba tan dalka lana gaarsiiyo doorashooyin madaxtinimo madax bannaan. kala duwanaanshaha u dhexeeya Muqdisho iyo dhulalka ku saabsan hanaanka doorashada darteed Soomaaliya ma awoodo in ay qabato doorasho inkastoo uu u dhamaaday waqtigii madaxtinimada ee 8 February iyo weliba xukunkii baarlamaanka ee golaha shacabka, taasi oo ku ekeyd doorashadiisa 27 December. danaha xooga dibadda ayaa isku dhac ka muujiyay siyaasiyiinta iyo weliba musharaxiinta ayaa bedelay jihada loolanka madaxtinimo. xisbi kastana wuxuu doonayaa in uu ku soo baxo isla markaana noqdo madaxweynaha soo socda ee
ee xukunka qabta iyadoona qayb kasta oo musharaxiinta ka tirsanna uu rajeynayo isla markaana doonayo inuu madaxweynaha soo socdo uu noqdo isla markaana noqon doono xisbigiisa uu hadda hoggaanka u hayo iyadoona ay dhinacyada ka riixayaan dalal shisheeye haba ugu horeysa Imaaraadka.